الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلجي معهم بالشدي رجال كعيود قبلكم مذك أي النوع مش حرضية وإسلامته أجوه الرئيسي مركي دلته وجشع لجو حكومي درده هالمرصاد وضرقات وحضر كيسان فيري والله ما الموت أيضا نبوا على لجسوا جبجبيي لو ما الموت بلجسوا جبجبيي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بدن كما جارو ماشينا كو سلامتين مقامكينا كو سلامتين بانت وفرحد waxaa isleeyahay cadaaladii jaranjartii ugu horeysay cadaaladeed ayaa waxay u soo hoyatay gabadhii walaashan ahayd ee Sabriin Rabbi Jannatul Firdaws ha ka waraabiyo ehliga qaraabana samri iman Allah ka siiyay cadaaladeedii jaranjartii ugu horeysay ayaan cagta saaray channelkana subscribe ii saar muuqaalka like tan ugu badi wixii tali tusaale qaybta comment-ka nagu soo wadaagi doontaa share gare oo muuqaalkan dad badan oo Soomaaliyeed oo kale la wadaag aad baa u mahadsantiin walaalayaal maanta waxa dhacay waa taariikh runtii qof kasta oo Soomaali ah oo ka sheekeen doono rabbi se waxaan weydiisanaynaa jaranjartii ugu horeysay ayaan saa u fuulnay waxaan ilaahay weydiisanaynaa in jaranjarta labaadna aan ku guuleysano oo maxkamadda racfaankana aan ku guuleysano maxkamadda racfaanka haddii lagu qanci waayana midda sare ee go'aanka kaba dambaysta alena aan ku guuleysano laakiin maxay ku imaan kartaa sida hadda aan uga wada dhiidhnay kiiskan Sabriin dhibaatada inta lagi loo geystay in aanan marnaba ka daalin oo halkii markii hore ay inoo hayd ballantu inaan sidii u wada taagnaano warar badan baa soo baxaya gadaal baa u dhiganayna laakiin waxaan dul istaagi doonaa maxkamadeyntii maanta iyo qaabkii u dhacday maxkamadeynta maanta iyo xukunka dilka ah ee islaantii dad qalatada ahayd lagu xukumay ka hore wareysi baa jiray wareysiga wuxuu ahaa xabsiga marka la soo qabtay qofka OB baa laga qoraa waa la fariistay oo waa la wareystay wareysigaas waxay ku sheegtay dhammaan dambiyada lagu soo oogay ama waxa lagu qabtay guud ahaan inay yihiin wax sax ah way qiratay dilka way qiratay in gacanteeda ay ku nafbaxday way qiratay gabadha inay aydu dishayna way qiratay waxa maxkamadda horteeda ma aha waxay ka qiratay station intii ay joogtay ee macnaha waxa weeyaan dambaariyaashu ay wareysanayeen markii ay qiratay kadib ayaa dhinaca maxkamadda loo soo gudbiyay laakiin markii maxkamadda loo soo gudbiyay kadib waa tii qareena loo qabtay qareenadaas marka waxa ayada lagu dhiirigeliyay in ay tahay qof xanuunsan laakiin gadaal bay iska bedeshayo waa arin laga soo shaqeeyay si macnaha waxa waaye loo badbaadiyo laakiin tii way socon waydayo mar kasta ayadoo caafimaad qabto oo aan la dhibaateen oo gurigeedii laga soo qaaday oo station kala keenay ayaa lagu wareystay halkii bay ku qiratay in dambiga ay gashay laakiin arinta mucjizada leh waxay noqotay oo qof walba oo bani aadana uu la yaabay islaantani waxay ogaatay in aanay sinaba ku badbaadeen siba inaysan ku badbaadeen way ogaatay taxadar baa la sameeyay lacag fara badan baa la qorsheeyay xitaa gabadhaas xeer ilaalinta ka shaqeynayay ee nooca u hadlaysay ee waxa weeyaan Sabriin cadaaladeeda nooca ugu doodaysay ee xeer ilaalinta ka socotay xitaa waxa la yiri lacaga loo soo bandhigay lacago ayaa loo soo bandhigay meel kasta lacag baa saa lagu harqinay si uun macnaha waxa weeyaan islaantaas loo badbaadiyo ugu dambeyntiina markii socon wayday wixii qareenadu waatay ku soo wareegteen oo isugu imaadeen oo markii horena laga calaacalayo laga cabaadayay gabadha yarto agoonta ee rajayda ee abalaanta ee hooyo la'aanta ala laha hadiiba ay dhimatay haddana ma dhowr iyo 10 caruur baan hooyo la'aan ka dhignaa macnaha quudaradii ay quudareenayeen waxay ku soo aruurtay dhowr iyo 10 caruur sideen rajo uga dhignaa soo waxa garteen ma alxamdulillah ilaahay bay mahad u sugnaatay maanta sidaasay dadkii gobolka mudug deganaa magaalada Gaalkacyo ee ka soo qayb galay qaabkay maxkamaddu u dhaceysay la socday labadii kala fadhiye kala duwanaaba goob joogayaasha ka ahaa xukunku markuu dhacay sidaasay wada farxay dhamaantood Allahu akbar sidaas la wada farxay maanta qof kasta oo Soomaali ah waan aaminsanahay sidaan u faraxsanahay oo kale inuu isaguna u faraxsan yahay maxaa yeelay jaranjaradii ugu horeysay cadaaladeed baan fuulnay garsoorku wuxuu yiri kiiskan racfaan baa ka furan oo racfaan baa ka qaadan kartaan waana ognahay waana wax jira qofkii inuu racfaan qaato laakiin waxaan rajaynaynaa maxkamadda racfaankuna kal fadhigan labada maalmood lagu soo gabagabeeyay sidaas oo kale in ay iyaduna u soo gabagabeeyso go'aan qaadashada waxa kale toon ka rajaynaynaa rajada anaga aan qabnay ah in maxkamadda racfaanku ku raaci doonto maxkamadda darajada koobaad ee gobolka mudug ee magaalada Gaalkacyo
go-aankii xukunkii ay soo saartay baan ilaahay weydiisanaynaa jaranjaradii ugu horreysan fuulnay tii labaad baa noo dhiman taana waan aaminsanahay lacagaha la firdhinaya ee magaalada bacaha lagu wada lagu dhex saynayo in looga gudbo oo la yiraahdo annaga maxkamadda racfaanka kuma qanacsanine midda sare hana la geeyo taana waxaan rajaynaynaa insha Allah in ay maxkamadda darajada koobaad go-aankeedii ay ku raacdo ayaan rabbi weydiisanaynaa cadaaladdu waa dhowdahay iyaduna way qiratay oo si buuxday u aamintay intani ay ka soo noqnoqosho lahayn waa taa markii la yidhi maxaad codsanaysaa oo maxkamadda ka codsanaysaa lagu yidhi ay sidan ku jawaabtay الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحكستو أو محكمة إيه شريعة الإسلام إيه حكمته وكوكان عصانها بيتري أو بلشدة سنة كوكان عيان وحي أكتاي حدي هالك على جسو دايو إن أي سم مجال نكسين ولا ندوري أو لو نحد لاي والله معناها دي خلالك وحكيناي وحنونك أنت اللي كيناي أو بوق أنت اللي كيناي أو بريشرك أنت اللي كيناي وحكلا معها والسلعة أرحن درده dhibaataynta iyo jugta culus ee gabadha masaakiinta ee rajayda ah ee agoonta ah ay u geysatay iyo qaabkay u dishay ayaa keenaysa xeer ilaalintu waxay codsatay ninka dhowr iyo 20 sanadood 23 sanadood oo xarig ah in lagu xukumo maadaama ay maxkamaddu dhinacyada wax ka fiirisay ugu dambeyntii waxa lagu xukumay 1 sano xariga muddada gaaban ay maxkamaddu ku xukuntay taasoo runtii aan anigu laakiin Cabdullaahi ahaan hadii wax laga weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa la isku daro labadaba hal israaciyaan dhihi lahaa aniga maxaa yeelay dhibaatadaas ay geysatay uu ka warqabay uu ogaa uu la socday gacantuu ka qaban karay gabadha yarta uu badbaadin karay faamilkeeda uu geen karay oo dhihi karay warhaade meeshaan gabadha yarta way ku silacday de gabadhina way dhibaatootay bal intayna naf bixin bal gabadhan meel u raadiya kuwii maroodiga ka wada xoog badnaa ee lahaa gabadhu anaga nala dhalatay ayaa xitaa uu geen lahaa uu dhihi lahaa war bal gabadhan badbaadiya laakiin tiima aysan dhicin raaliba uga habay ka dhigantaa habeenkii meedka qaaday gaariga ku qaaday markuu soo galay haduu buuqi lahaa oo dhihi lahaa war maxaa dhacay war sidoo wax yeesheen markiiba asagoo meesha taagan boolis uu cilaha oo dhihi lahaa war kaalay imaada ninka waxa la ogaan lahaa inuu saliim yahay laakiin intuu gabadhii qabtay xagga laga qabtay gaariga lagu xareeyay isbitaalkii la geeyay inta ka bax uusan juuq cidna u dhihin waxay cadeynaysaa in kiiska isaga la tirkiisu qayb u ka yahay laakiin cadaalad rabbi bay agtaa laaye maanta jaranjaradii ugu horeysay ee xaq u helida saabrin waa dul istaagnay laba jaranjaro ayaa noo dhiman labadaana maanta saan ahayn iyo meeshii aan kaga heynay ayaa inoo balana bidna alkariim muuqaalka noo share gare channelkayga dad ku cusub tahay subscribe isoo saar muuqaalkana meel dheer aan wada gaarsiino wixii tali tusaale qaybta commentiga ayaad igula wadaagi doontaa Allahu akbar